waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaraduhu ka haadaan kana soo degaan ee caasimadda Hargeysa Cigaal International Airport aqoon-yahan Maxamed Yuusuf Cumar oo ah gudoomiyaha naafada qurba joogta reer Somaliland ee ku dhaqan wadamada dibadda waxaana garoonka si diiran ugu soo dhaweeyay dhalinyaro aad u tiro badan ugu horeyn madashaasi lagu soo dhaweeyay aqoon-yahan Maxamed Yuusuf Cumar waxa ka hadlay qaar kamid ah dhalinyaradii isku soo dubariday hawshaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta waxaan halka ku soo dhaweynaa madaarka caalamiga Cigaal ee magaalada Hargeysa aqoon-yahan Maxamed Yuusuf oo runtii ah aqoon-yahan reer Somaliland oo runtii markasta u taagan oo leynta iyo dhiirigelinta runtii naafada Somaliland marka waxaan jecelahay maanta inaan madaarka Cigaal ku soo dhaweyno anagoo runtii guud ahaan aqoon-yahanka iyo dhalinyarada Somaliland magacooda ku hadlina aad bay maanta farxad iigu tahay inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha naafada ee qurba joogga Somaliland aad baan u soo dhaweynayaa Maxamed Yuusuf Cumar oo halkaan ku soo dhaweynay waxaan leeyahay bulshooyinta soo dhaweysay aad iyo aad baad mahadsantiin dhamaantiin waxa dhankiisa ka dareen celiyay soo dhaweynta ballaadhan ee loo sameeyay aqoon-yahan Maxamed Yuusuf Cumar oo ah gudoomiyaha naafada qurba joogta reer Somaliland ee ku dhaqan wadamada dibadda waxaana hadaladiisi kamid ahaa marka hore Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala mahadle dalkaygu hooyaygu nabad keenay marka labaad waxaan mahad celinayaa asxaabtayda iyo dhammaan ummadan sida fiican ee sharafta lay soo dhaweeyay ma qiyaasi karo farxadda aan dareemayo aad iyo aad baan u farxsanahay maadaama maanta Ilaahay igu sameeyaan dhulkaygu hooyo joogo waxaan ku rajo weynahay dalalka shisheeyaan ka yimi bulshada aan la dhaqnaa wixii aan ka soo bartay inaan dalkayga insha Allah aan keeno aan ku soo celino insha Allah laba arrimood ugu waaweyn baan insha Allah aan isleena dalka xagga asleeyahay aan iyo qorsheysan taasoo ah in dadkan baahida gaarka qabay leeloobay in noloshooda sare loo qaado taasay tahay muhiimadeeda ugu ballaaran iyo wacyigelin xagga noloshooda in sare loo qaado soo marka maanta hadal badan ugu talagelin farxadda ay ka badatay waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaad waa dhammaan inta ay soo dhaweysay asxaabta iyo familiga